Sidee loo set up gareeyaa hot corners ama shortcutyada afarta gees ee MacBooka? Si aan u set up gareyno hot corners waxaan u baahnaa inaan ku dhufano calaamadda Apple, kadibna aan tagno System Preferences, kadibna Desktop and Screen Saver. kadib hoos u soo baxa halkan waxaad aragtaa hot corners. ku dhufo hot corners, kadib waxa ku soo baxay afartan shortcut. tani macnaheedu waxa weeye afarta gees oo MacBookaaga ayaad shortcut ku samaysan kartaa. Okay, tusaale ahaan haddaan ku xirano dhankan midiga oo kale haddaan ku xirano launchpad aan kadibna okay niraahno, kadib si fiican u fiiri markaan geeska u qaado mouse-ka ana wax kale ku dhufanin waxa arkaysaa wuxuu geenayaa launchpad-ku geenayaa application-adan ayuu tusayaa. aan marka la ku celiyo ayar u soconaysaa marka geeska tagto waa aragtaa wuxuu geenayaa launchpad-ka. marka afarta koonaba waxaad ku xiran kartaa shortcut kala duwan oo aad aragtaa option kala duwan ay haysataa. sidaasna waxaad ku baratay sida loo isticmaalo hot corners.